xasan maxamed xuseen muungaab gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu booqasho ku kala bixiyay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho. gudoomiyaha ayaa waxaa socdaalkiisa ku welinayay naadiga dhalinyarada baarlamaanka Soomaaliya, qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolka banaadir iyo waliba mas'uuliyiin kale. goobaha kormeerka uu ku tagay duqa magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ah Hospital Madiino, Keesane, Martiini iyo waliba isbitaalka hooyadii dhanaanka ee Banaadir. waxayna ahayd ujeedada u kurgelida xaaladda dhabta ay ku shaqeeyaan isbitaaladaasi. ugu horeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kormeerkiisa ka bilaabay isbitaal Madiina ayaa waxaa warbixin kooban ka siiyay maamulka isbitaalka Madiina, isagoona gudoomiyaha mid u booqday dhammaan qolalka uu ka kooban yahay isbitaal Madiino. Dr. Axmed Taajir oo ka mid ahaa taqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Keesane ayaa isagana warbixin kooban ka siiyay xaaladda isbitaalka Keesane, isagoona ka mahadceliyay deeqda maanta ay soo gaarsiiyeen maamulka gobolka banaadir. way joojiyeen sababta waxay arkeen inay wadi karaan taqaatiirta Soomaaliyeed iyo shaqaaladooda iyo maamulkooda isku duuban. sidii ayaan hawshii u wadnaa alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahayna muxuu ahaa nagu macreebay sidii aan ugu taaganahay. marka mudane gudoomiye sharaf weyn ay noo tahay marka maanta inaad nala joogtid. waa jirtaa runtii cabashooyin isbitaalka macnaha waxyaabo badan isbitaalka baahi badan oo isbitaalka macnaha uu qabo waa jirtaa. hadday noqon lahayd muxuu ahaa dhinaca jidadka isbitaalka soo gala oo aan filahayo inaad idiina kusoo aragteen sida ay qof u yihiin marka oo u baahan dayactir u baahan. sababtoo ah bukaan waxaa la keenayaa xabad ku taallo jidkan hadduu soo maro communicationka hadduu soo maro bukaanka waxaa lagu keenayaa runtii aad u dhibaatoona lagu keenayaa. marka taas ayada ah muxuu ahaa waan codsan lahayn gobolka in macnaha adoona gudoomiye laga caawiyo waan codsan lahayn. xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux kormeerka ku welinayay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa isagana madasha hadal ka jeediyay, isagoona gudoomiyaha ku ammaanay howlahan ay ku caawinayaan isbitaalada magaalada muqdisho. ka rajaynaynaa dhammaanba laamaha dawladda oo ugu horeeyaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaruhu ahmiyad gaar ah inay siiyaan. macquul ma aha in yiraahdo madaxweynuhu waxaan ka jawaabi karaa waxa ka socda magaalada muqdisho ama ra'iisul wasaaraha ama gudoomiyaha baarlamaanka. waxa loo idmaday qofka. waxaa muhiim ah injineer markuu guri ku dhisayo inaad naqshadda uu keeno ku mutaabacayso, laakiin naqshad kale la siiyo waxaa ka munaasabsan in naqshadiisa lagu mutaabaceeyo. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab oo isna gabagabadii hadal ka jeediyay madasha ayaa waxa uu ku ammaanay isbitaalada magaalada muqdisho hawsha shacabka ay u hayaan, isagoona ballan qaaday in gudoomiyaha ay taageeri doonaan dhammaan isbitaalada magaalada muqdisho, isagoona maamulka isbitaalada ku wargeliyay gudoomiyaha inay soo qortaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. ku cadeyno codsigaaga maanta wuxuu leeyahay cusboonaysiin. annaga waa garanay arrintaas markaa nimid maamulka hal bilow jirsaday, ومع ذلك ورقدي هريسay aan u qornay hay'adaha arrimahaas naga gacan siiyay waxay ahayd in halkaana wadadana la simo oo la dayactiro isla markaasna nan la geliyo laba warqadood. insha Allah taala waxaan rajaynayaa mar dhow inay hawshaas bilaabato. halkaana waxaa ku jiro dabcan doctor iyo qabo كثير أو معمول عند الجسرة أو أروح تلاقي بال bukaanka inaad wixii dardaran adoo qeybiysid sidoo kale arinta labaad ee ka hadasho shidaalka asna dabcan haddana wax yar oo aan ku soo salaana way jiraan oo shidaal ah annagana maamulka gobolka banaadir arintaas uu dareemi karaa. booqashadani maanta uu ku kala bixiyay gudoomiyaha gobolka banaadir qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho ayaa noqonaysa booqashadii ugu horeysay uu ku kala bixiyo tani markii xilka loo magacaabay. محمد إبراهيم محمد رويال تي في مقدشو.